madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maanta jeediyay khudbadiisa qaran ayaa ka hadlay dhowr arrimood oo kala duwan balse ugu muhiimsaneyd xaaladda cudurka COVID-19 ee laga diiwaan geliyay gudaha dalka Kenya bilooyinkii la soo dhaafay. Khudbadiisa qaran uu jeediyay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay inuu kordhiyay bandowgii guud ee saarnaa dalka Kenya isagoona bandowga guud ee dalka Kenya ku kordhiyay muddo 60 cisho ah oo ku astaysan ilaa iyo bisha koowaad ee sanadka soo socota ee 2021. That the nationwide curfew is extended up to the 3rd of January 2021. sidoo kale madaxweyne Uhuru Kenyatta mar uu ka hadlayay dib u furidda dugsiyada waxbarashada dalka Kenya ayuu sheegay in dugsiyada dib loo furi doono sanadkan ugu soo fool kale ee 2021 bishiisa koowaad. Also order that all basic education classes resuming in-person learning in January of 2021. dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in maqaayadaha iyo baararka qamriga lagu iibiyo ay furnaan karaan inta u dhaxaysa 4 aroornimo ilaa 9 fiidnimo. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in kulamada isku imaatinka goobaha diiniga ah looga baahan yahay inay dadka imaanayaan ay noqdaan 3 meelood meel ka mid ah intii horey u imaan jirtay loogana baahan yahay inay u hoggaansamaan talooyinka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda caafimaadka Kenya. Any indoor religious gathering other than for the purpose of a wedding or a funeral shall have no more than 1/3 of its normal seating capacity occupied at a given sitting. ugu dambeyntii madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu joojiyay isku soo baxyada siyaasadeed muddo 60 maalmood ah isagoo sheegay in ay muhiim tahay in laga taxadaro badqabka shacabka Kenyaanka ah. That all political gatherings and rallies are suspended for a period of 60 days. Abdurrahman Atore, 5TV, Nairobi. Uniquely local experience, the development's design is inspired by the rich texture of local setting and culture, masterfully blended with modern design principles. A hand-picked signature selection of finishes abounds throughout, from the fully fitted modern kitchen, complete with island counter and kitchen yard, to the spacious bedroom suites with beautifully appointed cabinets and generous windows that bathe the rooms in natural light, to the stunning en-suite bathrooms. Shams Residency, an exquisite combination of style, culture and luxury in one immersive experience.